horta waxaanu doonaynaa waxa weeye waa aqoonsiga caalamka inaanu ka mid noqono bahda caalamka waa shay qaali weeye wixii qaaliya waa loo samraa waanu u samreynaa insha allah 26 sanadood baanu u samiray meel wanaagsanna waanu joognaa rajo badanna waanu ka qabnaa inaanu gaari doono maxay radaa ujeedadeeda marka war rajo baad ku jiraysan waligeed toota dabcan bini aadan baynu nahay wax waliba ilaahay bay ku xidhiyeen gacantiisa laakiin dadaal baanu wadnaa rajana waa qabnaa aad iyo aad baanu ugu kalsoonahay insha allah bidnaahi karim ictiraafkan raadinayno inuu heli doono dhawaan waan gartay Soomaaliya waxay isugu keen xiran yihiin oo wada hadalna idin socday sanadihii ugu dambeeyay wada hadalkaas xagee ku dambeeyay waa runtaa weeye waxaanu bilownay wada hadal 2012 magaalada London baa laga bilaabay intii ka dambeysay 7 jeer oo kale ayaa la kulmay hase yeeshee nasiib darro runtii wax weyn oo ka soo baxay wada hadalka ma aanu jirin waxa facilitate gareynayay amba runtii marti gelinayay wada hadallada wadanka Turkey waxaan rajaynaynaa runtii in dib loo bilaabo wada hadalladii madaxweynaha Farmaajo wuxuu yiri waxaan diyaar u ahay wada hadalladii intuu loo bilaabo waa soo dhaweynaynaa annaka way naga go'aantay runtii aan ku wada dhameysano amuraha naga dhaxeeya wada hadal laakiin mas'alada xal baa laga gaaraya because labada dhinac markaad eegtid muqdishona waxay leedahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas Soomaaliland waxay leedahay goonistaagana waa muqaddas marka meeshaas markaad kala joogtaan waxa suurtagal ah mas'alada wax walba waa suurtagal weeye saad ogtayba Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan laba wadan oo xora oo isu yimi markii dambana kala tagay yani markii ugu horeysay ma Afrika ka dhacday meelo badan bay ka dhacdeen laba wadan isu yimaadaan haddana kala noqdaan waxaan maleenayaa wax runtii weyn ma imkan 26 sanadood baa waynu kala maqnayn 26 sanadood ee la kala maqnaa Soomaaliland wax dhibaato ay Soomaaliya ay u keentay ma jirto Soomaaliland waxay ku lumisay runtii ma jirto marka wax u diidaa ma jirto runtii maanta ugu dambeysay madaxweynahaagu waxa uu ku celiyay mar kale in ay ka soo horjeedaan in cunaqabataynta hubka saaran Soomaaliya laga qaado runtiina gobolka waxa ka taagan amni xumo Soomaaliya oo kala dagaal bay kula jirtaa al-shabaab maxaad ku diidaysan hadiiba wadankii nabad u noqonayo dabcan de wadan baan gobolka kamida marka wadanka gobolka marka hub iyo ciidamo ay ku soo biiraan dabcan warwarkeeda leedahay laakiin waxay Soomaaliya maanta u baahan tahay maaha hub cusub maaha wadanka hub baa ka buuxaya rasaas guri walba qorayaala xaruntii loo baahan demobilization waxay u baahan tahay dawladda inay ururso hubka yaala oo iyada gacanteeda uu soo galay shacabka ay ka ururso taa way runtii tahay u baahantay ee uma baahan hub cusub in loo keeno heshiiska aad la gasheen shirkaddan DP World ee Imaaraadka oo dekadii aad ku wareejiseen waxa soo baxday hadda oo horeyna aan loo ogeyn oo baarlamaankana loo sheegin idinkuna dawlad ahaan aadan sheegin in 19 boqolkiiba dawladda Ethiopia la siiyay xagee ka timid horta heshiiska ansixiyay baarlamaanku way ku qoran tahay labada darafba cid ay doonaan inay ka sii iibin karaan hadii cid kale ay aqbasho in cid kale ka sii iibin karaan saamigooda marka runtii xaga wax ka cusub ma laakiin xaqiiqdu waxa weeye maanta inay wada hadlaan laakiin sanadaha ugu horeeya waxa ku qoran sanadaha ugu horeeya in aan ilaa wax laga ogaanayo cid kale lagu wareejin karin Soomaaliya wax ma ku qoran waxa weeye weyn labada weyn la isla ogol yahay laakiin maantadan aynu wada hadlayno shirkadda DP World Berbera la yiraahdo ee maalintii dhawaato la daahfuray waa shirkad ay wada leeyihiin maxay DP World iyo Somaliland oo kaliya laakiin waxa jira tafaahum iyo heshiis baa jira Ethiopia haday doonto inay soo gali karto sababtuna waxa weeye waa dekada waxa loo sameeyay Ethiopia inteeda badan oo isticmaali doonta raali ma ka tiin marka adinku dawlad ahaan xukuumadii Somaliland hadaad tihiin 19 kaas raali ma ka tiin أنا طبعا وابن ده تفاهم كوابن قليبا Somaliland kuma waqtiga Somaliland waqtiga tafaahum ka waa la galay wax dhibana runtii ma aragno laakiin baarlamaanka iyo shacabkii lama sheegin waa wax hadda uu soo baxay meede baarlamaanka san ku sheegay heshiiska approve gareeyeen amba ansixiyeen waxa kamid ahayd inanba bahashan DP World iyo Somaliland labaduba saamiga ay leeyihiin cid kale ay kala qaybsan karaan ba ku qoran horta taas wax cusub maaha ولينا ده ما يصابيرين محل إثيوبيا وهشيس جودن وي لكن مد وليد كاس ما حنا قاعدين مركل لوب بحضود ولا قعدنا يا بارلمان كوانا لقلت شناي saldhigga military haddaan ka hadalno dad badan baa walaac isna ka keenay oo dadkii Somaliland joogay siyaasiyiintii qaar adiga ku dhaada markii hore maadan ogolayn xitaa xilligii la codeynay maad iman sida ugu maqaala shirki soo ma jira walaac ah yaa damaanad qaadaya haddii Imaaraadku aan ognahay inuu lug ku leeyahay dagaalkan Sacuudiga Yemen ka socda ay u isticmaalaan oo dhibaato ay uga timaado Somaliland wadadka day warwar runtii ay ka muujiyaan maxay raahdaa base I think xaq bay u leeyihiin waana wax runtii la garan karo weeye
laakiin xaqiiqdu waxa weeye waxaanu ku qanacnay beeskaas inaan wax dhibaato aanu lahayn Somaliland u lahayn Soomaaliya u lahayn gobolkan aanu u lahayn beeska waxa isticmaalaya wadanka Imaaraadka oo kaliya saad ula socoto Imaaraadku de maaha wadan super power maaha oo awood uu ku qabsan karo maxay raahdaa gobolka malaha isla markaana runtii wadanka Imaaraadku waa la saaxiib Somaliland waa la saaxiib Ethiopia waa la saaxiib Djibouti laftigeeda runtii cilaaqad wanaagsan bay lahaayeen ilaa dhawaan marka runtii wax dhibaato uma aragno annagu waxaan arnaa laakiin faa'iidadiisa